madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici ayaa maanta si rasmi ah u dhagax dhigay wadada isku xidhi doonta gobolada Togdheer, Daadmareed iyo sidoo kale Maroodijeex. munaasabad si heersaraa loo soo agaasimay isla markaasina lagu dhagax dhigay wadadaas oo ka qabsoontay deegaanka Kabadheer oo ka tirsan gobolka Togdheer ayaa waxa ka soo qayb galay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland xubno ka socday golaha wasiirada ee xukuumadda, madax dhaqameed, maamulka gobolka iyo ka degmada Burco iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada. ugu horeyntii waxa halkaasi ka hadlay isla markaasina habka ay u bilaamayso wadadaas faahfaahin ka bixiyay mas'uuliyiinta wakaaladda horumarinta wadooyinka ee Soomaaliland. wadadu dhagax dhig kaliya maaha dhismihii wadada Burco Daadmareed iyo Hargeysa maanta oo taariikhdu tahay 7 bisha 2021 si toos ah inoogu bilowday. waxaan runtii aad iyo aad ugu faraxsanahay in bulshada reer Togdheer iyo bulshada reer Daadmareed iyo bulshooyinka reer Maroodijeexba ay farxad iyo qalbi furan iyo ahmiyad soo dhaweyneed ku soo dhaweynayaan wadada. feasibility study-ga marka laga hadlayay wadada dhowr route oo kala duwan ayaa loogu talagalay loo qoondeeyay, laakiin marka la eego degmada Oodweyne in la mariyo waxay noqonaysaa 184 kilomitir. waxaanu kala xiriirnay wadamo badan, waxaanu kala xiriirnay companiyo fara badan in wadadan laga dhigo wado commercial ah. wadadana waxa la arkay ama markii study-ga aanu sameynay la ogaaday inay tahay wado halbowle ah oo mararka qaar la oran karo taa ceergaaba xitaa way ka muhiimsan tahay. wadadan Oodweyne waxay nasiib u yeelataa ugu bashaareynayaa in wadada laga dhigi doono roog. sidoo kale intay munaasabadaasi socotay waxa iyaguna halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah madax dhaqameedka gobolka Togdheer iyo sidoo kale mas'uuliyiin kale iyagoona ka hadlay ahmiyadda wadadaas. deegaanka ay wadadu sii marayso waxaan leeyahay dhammaan maxay hayday dadka dega waxaan leeyahay si aad iyo aad u qiimo badan oo aad u sharaf badan oo u milga badan oo maal iyo soo dhaweyn iyo qalbi wanaagsan iyo mid walba leh. wadadaas intay socoto waxaan idinka rajaynayaa inaad wadada iyo shaqaalaheedaba ku soo dhaweysaan. aad iyo aad baanu wadada ugu faraxsanahay. waxaanu u mahad celinaynaa laga soo bilaabo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo cid kastoo gacan ka geysatayna waa u ducaynaynaa waana uga mahad celinaynaa. waxaanu rajaynaynaa annagu dhinacayagana inaanu qaybtayada qaadan doono haddii la haysto. shacbiga reer Soomaaliland ee Hargeysa ka buuxsantay ee Berberi ka buuxsantay ee Burco ka buuxsantay waxaan leeyahay Oodweynayay idinka buuxsamin. wadadaas hadday dhammaato meeshaynu u soo noqonaynaa waa Oodweyne. ballan qaadaynaa haddaanu nahay deegaanka u dhaxeeya intaa wadadu marayso shaqaalaha wadada dhisaaya iyo qalabka iyo gaadiidka wax kastoo ay u baahan yihiin inay naga helaan wixii karaanka iyaga ah wax dhibaato soo gaadhanayna aan arag. waanu ballan qaadaynaa. maanta mucaaradeed ma jirto. waxaan halkan kaga deeqayaa 15 euro ay shaqaalaha faraha badan ku afuraan ayaanu haddaanu xusbiga u cudnahay u bilownay. wixii cusub iyo wax qabadka iyo horumarka waa la soo dhaweeyayo waan soo dhaweynayaa waan ku bilaabay hadalka wax la leeyahay wixii suurtagalaya darafka iyagana waa taageereen. sharaf bay noo tahay hambaliyana waxay u tahay xukuumaddan maanta oo Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland madax ka yahay. waa tashanay waxaanu nidhi war baashi sidee loo galaa hadal iyo hilbaba kala qalan. madaxdii dhaqanka iyo xildhibaanadii halkan ka hadlay ee reer Togdheer 200 ku moolsar afarta soo harayna waxaanu nidhi gobolka Maroodijeex iyo qurba jooggu ay iska kaashadaan. waynu garab taaganahay haddii Allah idmo waa mashruuc u qiimo leh. Ilaahay baynu ka baryaynaa subxaanahu wa ta'aala inuu inoo fuliyo. sidoo kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay barasaabka gobolka Togdheer, gudoomiyaha banka dhexe iyo sidoo kale xubno ka socday golaha wasiirada ee xukuumadda Soomaaliland. maanta waxaanu dhignay dhagaxii u weynaa ee aanu odhan jiray Hargeysa nagu fog. maanta waa aragtaanood markay taasuuna hirgasho qofku intuu ka soo qadeeya waa kana ka cashaynaya wax weyn waa guul soo yeetay. wasiirka jidadka iyo gaadiidka ayaan aad ugu mahadnaqayaa oo isagu hawshan qayb weyn ka soo qaatay iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ay ku adeegeen inay wadadan bilaabaan oo dhameeyaan. wadada waxaan u qaybinay 2 qaybood. waa qaybta Burco Oodweyne iyo Oodweyne Hargeysa. sanadkan hore waxaa qorshe yahay in la dhamaystiro oo laga shaqeeyo Burco Oodweyne. marka kooska arkaysan 5 milyan ma dhisi doono 184 kilomitir. laakiin qorshe waxa weeyaan qorshaha Oodweyne Burco taana ina saxan doonaya. waxaan leeyahay reer Togdheerow xagga wadadu markay Oodweyne dhaafto waan garanayaa Hargeysa lacag badan bay haystaa markiiba waa la jiidaya. wadadiina reer Togdheer ficil badan baan idinku ogaahay idinkoo isku duuban reer Togdheerow wadada dhisa. waxaan idin leeyahay
anaguna haddaan nahay haweenkii qaranka Soomaaliland haddaan nahay qurbo iyo guyahaba waanu u soo dadaabaxidhanana waanu dila shaqaynaynaa. waxaan runtii aad iyo aad ugu ammaanayaa wasaaradda jidadka iyo gaadiidka ee u igman inay hawsheedii iyo ka badanba ka qabatay wadadana kaliya ma ahee wadooyinka uu qaranku leeyahay kii waa la wada yidhi laakiin waxa aan isdul taagayaa in horumarka wadadu aanay horumar ka horreynin. waxaan wada hambalyeenaynaa wadadan oo ah wado qaran oon ahayn wado cid gaara leedahay. ugu dambeyntii waxaa munaasabadaasi soo gabagabeeyey madaxweyne ku-xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici isagoona madaxweyne ku-xigeenku ka warbixiyey ahmiyadda ay wadadan cusub u yeelan doonto shacabka kala duwan ee dega gobolada ay wadadan isku xidhi doonto. maalinba cidda xilka joogtay waxa u xilsaarantaa in qarankan qabyadiisa intii ka dhiman sida u dhamaystir lahayd. madaxweynuhu wuxuu go'aan ku qaatay in hawshii mar hadday wadadii mudnaanta labaad lahayd ee ciddii aragtay dhibta badan leh in laga dhigo markaa wixii inagu aan haysanayn halkan soo wareejino oo hawshii ka socotay wadadii Ceerigaabo halkan loo soo wareejiyay madaxweynuhu go'aan ku qaatay. saasaana maanta ay dhagax dhig iyo hawl bilaabis isku raran aynu u dhibadna runtii haddaynu gacmaha isku qabsanno oo aynu wax walba xooggeena iyo maskaxeena maalkeena u hurno waxay noqonaysaa in wadadaasi way noo hirgelaysaa. Cabdiraxmaan Cabdilaahi Xasan, telefishinka Sum News, magaalada Burco.